أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. الشيخ محمود جزاه الله خيرا. إلهي سبحانه وتعالى محاضرة قيمها بدن ونسو جيدي خيرها كسيو. sidoo kale sheekh maxamed macalin barre dadku yaqaanaan isagana ilaahay subxaana wa tacaala khayr ha siiyo ilaahay subxaana wa tacaala hana kulmiyo hana jamciyo jamac wanaagsan fitanta iyo dhibaatooyinka jirana ilaahay subxaana wa tacaala dhinaca naga mariyo. ikhwaani culimmadu waxay ka hadleen wax badan masaajidda sida hadda aad maqlaysaan muxaadarada sheekh maxamed sheekh maxamuud iyo qur-aanka talaasum baana ka dhexeeya qur-aanka iyo masaajidda way isleeyihiin macnaha xiriir baa ka dhexeeya weyn. kelimad yar insha allah oo waqtigii aad baa loo dahay laakiin inkastoo ballantii waqtiga ahayd aysan weli la gaarin ayaan kusoo koobaya insha allah. toddobada ahayd muxaadaraadka inay dhammaadaan laakiin waan ka horan dhamaynayna insha allah. kelimad yar oo ah ku saabsan fahamka islaamka guud ahaan iyo diinta fahamkeeda. mushkila waxay ka taagan tahay maanta diintii baa la kala jiidanaya. ninkii waataad maqasheen ninkii kor u kaadiyey war maxaa kor u kaadis duul culimo waashanahay duul culimo waash waana sax haddaad fiirisid kutubta shaaficiyada qaar waxaa ku qoran horta xadiidka waxaa waaye inaanan kacbada dhabar kale la xijin karin aan lana xijin karin loona jeesan karin marka la xaajoonayo oo masalan ama la kaadinayo ama la saxaranayo wix lamid ah. kutubta shaaficiyadana qaar waxaa ku qoran barina looma jeesan karo galbeedna looma jeesan karo ma fiicna iyagana waa karaahiyo. marka xoogaa waxay ka wadaan inuu isdadbo qofka isdadbo oo labadaas jihana uusan u jeedsanin inkastoo daliil aysan lahayn. markaas waxaa la yiri shaakada waa siday ku timid uu ninku kor u kaadinayo hadda marka wuxuu waayaa intana waa karaahiya la yiri intana waa karaahiya tanna waa xaaraan tanna waa xaaraan muxuu sameeyaa kor buu kaji. markay dadkii waxaad moodaa hadda inay noqdeen waxaan nahay duul culimo waash duul culimo waash oo say tahay duul culimada waash dadkii maanta waxay marayaan inay maqlaan markay timaado masaa-isha ictiqaadka markay timaado mid yiraahda dhib ma leh awliyada waa la baryi karaa qabuuraha ziyaartooda ha la badiyo maxaan ku irahdayay istiqaafada waa la ogol yahay wasiirada ha lagu tawasulo awliyada ha lagu tawasulo mid dhaha mujada iyo mid yiraahda war waxaas waa shirki waa xaraam lama ogolee ka hara ilaahay ma ogola waxaas waa shirki tawxiidka kasoo horjeeda waa lagu naartaga. qofka hadduusan marka cilmigii u dhag raaricinin muxuu leeyahay dul culmo waashana. mid wuxuu arkayaa yiraahda markay timaado bidcooyinka dhib ma leh salaadaha intaa rabto iska tuko wardiga intaa rabto akhri xadare haddaa rabtid mujada mawlidkaaga iska dhigo mujada wax hadduuba khayraya waa khayr. iyo mid yiraahdo war waxaas lama ogola waa bidco nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ma ogeyn mana ogola nabiguna bidcadu naga nahiyey yiraahda. qofka marka wuxuu leeyahay jaahilka ahaa oo aanan markaas diintii iyo aan ku xirnayn cilmigii dul culimo waashaan ah. marka labadaas kii ii ficnaataan qaadanaya. wuxuu arkayaa mid yiraahda muusigaaga iska dhageyso no problem casri music baa lagu jiraa muusigaaga iska dhageyso imaam ibn xizm baa ogolaaday mujada haweenka iska salaan arrintaas ayada waa arrin fiqi jadiid oo cusub waaye marka haweenka taad aragtid salaanta ku dhufo mujada laxmiga laxmi xalaal iyo waxa la dhaho waxaas ma jiraan chickenkaaga iyo
iyo mataqaana isteegaaga iska cun go ahead iyo mid dhaho war waxaas waa xaaraan waxaas lama ogolee nebigu sal lla ly slama weligiis hawaan gacantiisa ma taabanin wuuna diiday arrintaas iska dhaaf maujeeda heesahana waa xaaraan oo rasuulkaa ka digay qur-aankuna wuu ka digay saxaabada rasuulkana way ka digeen wuxuu lehay sheekhow labadiina culamo waa iskhilaafsan tihiine duul culamo waa shaanahay danteedaan ka raacanaya maujeeda mid wuxuu arkayaa dhahaayo ilaahay sifaadkiisa waa la ta'wiilin kara oo hadda ma waxaad leedahay ilaahay baa gacan leh ilaahay baa weji leh ilaahay baa lug leh ilaahay baa khalqi ka dhex baxsan oo meel sare jooga keligiis miyaad leedahay marka saa darteed waa in la ta'wiiliyo yaddu macnaheeda waxaa waaye waa nicma ayaa laga wadaa nimca laga wadaa iyo qudro baa laga wadaa sifada culuwiga ilaahay carshigu ka sarreeyaana waxaa laga wadaa xoog baa laga wadaa iyo haymano iyo seetara laga wadaa marka ilaahay diintu caqli bayna siisay waa inaan caqliga isticmaalno ilaahay wuxuusan mataqaanaay uusan ogolayn oo aanan u habanayn waa inaanan ku sheegin saa darteed sifaadka waa in la ta'wiiliyo kullu nasin aw hama tashbiiha awilhu aw fawidhu warim bihi tanziihan yani uqsud bihi tanziihan nas kasta ooba keena in ilaahay tashbiih inuu ilaahay wax shabahayo iska ta'wiili adiga dheh mataqaanaa saasaa laga wadaa haddii kale ma garanayo dheh haddii kale isaga dhama daaqada ka saar ma ujeedaa nin saasuu kuleeyahy midna wuxuu kuleeyahay ilaahay sifaadkiisa lama ta'wiilin karo sida ay yihiin waa inaad u rumaysatid waa inaadan xaggii xagga u dhaafin dariiqii rasuulka sal lla ly slama saasoo ah waa inaad ku socotid markaasaa qofku wuxuu leeyahay duul culum oo wareerisaan nahay dantaydan ka raacanaya waxaanaan idiin sheegaya wax saalima dad badan baa hadda wareeray mas'alatuljihaad iyo gaal la iska dhiciya markay timaado mid baa wuxuu leeyahay gaal meeshaad ku aragto qoorta ku dhufo dagaalan adigu dagaalka ma socda xabadda ma dhaceysa taa ka raaca bes ujeedada ka raaca gaal iyo muslim ku kala saaran yihiin dagaalka wad adigu xabadda hadday dhaceysa khayr waay wadaadka ka hor imaadana waa wadaad wareeraye hadday gacantaadu gaartana qoorta ku dhufo haddayna gacantaadu gaarina culamaa usuu waayo dhe waa xun yahay dheh wadaad kalena wuxuu leeyahay war bereedha ha la tartiibsado war culamada ha loo noqdo war ahlu ra'yiga ahlu xilliga ha loo noqdo war xadiidka rasuulka sal lla alay slam iyo kitaabka ha loo noqdo maujeeda oo yaan la degdegin ninkii marka shacabka ah uu iska wareeraya wuxuu leeyahay duul culuma wareerisaan nahay meeshay la noqoto ku dhufanaya waa la wareeray marka maxaa sax ah war maxaan sax u fahanaa dadka waa wareereen maxaan sax u fahanaa maujeeda dad waxaa la yidhi jaban baa waxaa laga sheegay dad soo islaamay yaa waxaa isku qabsaday markay soo islaameen yaa la isku qabsaday shaaficiye iyo waxaa isku qabsatay xanafiyo shaaficiye xanafiya isku qabsatay ya ahey wafdiga caalamul islaam usoo diraan baa leelehay xanafiye noqda iyo shaaficiye noqda yaa isku qabsadeen dadkii marka xanafiye iyo shaaficiye waqtigii nebi sal lla ly slam miyaa la yaqaanay waa maya ma mas'alo lagu kala tagaa ninku hadduu xanafi noqdo iyo hadduu shaafici noqdo waa maya haddana halkan waxaan maraynaa in la dhaho in kow waxa ugu horeeya la baro salafi are you salafi ninka madowga ah african americanka marka ugu horeyso ku arko oo walaalaha qaar ay wax baraan wuxuu ku leeyahay are you salafi islaamnimadii waxaa ka horeysa are you salafi salafiga laftiisa maaha dadka in lagu kala saaro lagu kala ceyriyo maaha ma ujeedaa waa dariiqo la raaco oo sax ah oo dariiqii salafka in la raacaya tahay marka insha allah kelimadan kooban daqiiqada yar waxaan kusoo koobayaa maxaa sax ahoo la raaca ikhwaani annagaa iswareerinayna ma ahane diinta ilaahay wareer kuma sugna jahli baana ugu wacan in la wareero midda koobaad ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuuna faray tawxiid goos dambe waxa ugu horeeyo la qabsada diinta waa maxay waa tawxiid kelimada lagu soo galo waa maxay waa laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullah sal alla alay slam kelimada ugu horeyso waa tawxiid taasaana waxay kuu caddaynaysaa waddadaada
wadadaada bal u fiirsada laba ka koobanta labo shahaadateynka waa labo waa tawxiid iyo mutaabac laa ilaaha ila allah oo laba kasii kooban oo ah laa macbuuda bixaqin ila allah wax xaq lagu caabudo ma jiraan oon allah ahayn u fiirso meeshaas waxaa la rabaa qofka caamada muslimka inuu wax ka fahmo caamatu naas cibaado waxaan maxaan ula jeedaa haddii wadaad labadaa wadaadoo isqabtay waxaad ku kala saari kartaa war aniga ilaahay wuxuu ifaray inaan keligii caabudo keligiis inaan caabudo ifaray miyaa la isku khilaafsan yahay taas ummadda muslimka miyaa taas isku khilaafsanta maya suufiga midka ugu suufisan inuu ta'wiishada ma ahane laa ilaaha ila allahu ma ictiraafsanta haddaad tiraa haabuu ku leeyahy haba isburiye asagoo gadaal dambe qabri iyo meelo la siyaartay iyo gadaal ha uga daro ha isburiyo laakiin marka hore waa waafaqsan yahay laa ilaaha ila allah qur-aanka dhanna qur-aanku waa dhowr qeybood qeybta ugu muhiimsan wuxuu fasiraa intaasuu fasira walaqad bacatnaa fi kulli ummati rasuula an icbudu allaha wajtanibu taaquut ilaahay caabuda taaquutka ka fogaada waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu ma ujeedaa ilaahay keliya in la caabudo cibaadadana waa maxay waa wax kasta oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku gaarsiinayo oo camal ah oo ficil ah oo ictiqaad ah oo ilaahay uu raalli ka yahu jecel yahay saasaa lagu tacriifiya cibaadada inaadan ilaahay u leexinin wax ka mida cibaadaadkaas inaadan la imaanin excuseski ama cudurdaaradii ay mushrikiinta la yimaadeen qur-aankii ku cadda sheekh maxamed atuu noogu sheekeynaya qur-aanka wax walbaa ku cad hadda maanta duruqu suufiya qaar waxay ictiqaadsan yihiin war adigan miskiinka ah dembiyada badan le ilaahay lama toos ulama xiriiri kartide ilaahay waa inaa wax usii martaa ha lama xiriiri kartid ilaahay waad wasaqaysantaa dembiyaa kaa buux ilaahay lama xiriiri kartid ha miskiin baa tahay yaa ku siiyey darajada iyo sharafta inaad ilaahay kula xiriirtid yaa ku siiyey waa inaad ilaahay cid u martaa waa same logic waa caqliyadda ay lahaayeen mushrikiintii qureysheed iyo kuwa maantaba maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allah haaulaa'i shufacaauna cinda allah uma caabudayno ilaa inay ilaahay noo dhoweeyaan ma ahane haaulaa'i kuwan miya aan caabudayno shufacaauna cinda allah ilaahay agtiisa bay shafeeco nooga qaadayaan bas markay xajinayaan maxay dhihi jireen labayk allahuma labayk labayk laa shariika laka labayk ilaa shariikan malaktahu wamaa malak ilaahay ou shirki ma lihid fiiriya mid wax kula wadaaga ma jiro mid yaroo waxaa jira laakiin shariik kula aho ku yar adaa iska siile asagana adaaba iska siilehbo asagu waxba ma lahane adigaa siileh marka hadda wuxuu ku leeyahay awliyadan shaqow ilaahya ma aha waa masaakiin yar oo ilaahay aan ugu sii dhawaanayno ilaahay baa iyagana leh ilaahay baan ugu sii dhawaanaynaa xooga yar baa ilahay usii maray marka maxay kaga duwan tahay ilaa shariikan malaktahu wamaa malak maxay kaga duwan tahay haaulaa'i shufacaauna cinda allah maxay kaga duwan tahay maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allah waa isku mid tawxiid markaad tawxiidka fahantid baad waxaad fahmaysaa wixii ilaahay uu leeyahay oo keligiis ay tahay in la siiyo markaasaa fahmaysa hadhow marka qeyl uma lihid anigu diil culuma wareerisaan ahay qeyl uma lihid waana kelimad dhan oo يعني كتب علماء انت شيخ الاشقر رحمه الله waxaan filayaa mar dhow inuu dhintay dr Umar al-Ashqar كتاب حوليه ليرادو سلسله العقيده على ضوء الكتاب والسنه ayuu leeyahay hal kitaab kamid ah wuxuu kaga hadlay Allah bas Allah hal muraajaciyo qofkii heli kar kitaabkaas
أن قيبت كحكته وحواية وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحنقر سنة النبي محمد إنه يا رسولك إلهي قيبت أصلا وحي كاساريسا عقدتي كلا أو أهيد أنو دليل ما أقانه دول علوم وريرسان هاي موسيقى ما دقيستان من سواء اسكا دافا مولود كما دقتان من سواء اسكا دافا وحانو ما جهاد بان مس جهاد ما أهن وحانو ما حلال بان مس حلال ما أهن ما أقانا أنيقا باي ماشي كساريسا وايو النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيكوغو إلزامينيسا إنا راعضو متابعادو وقيب كمد شهادة كمد فكأنه الدين إنه راعى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقيب كمد توحيدك عمل كما حال ده شرطي القبول عمل كما محي والله بصمه قيبتك بعد وحواي الإخلاص قيبت لبعضنا محواي المتابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عباده وسنكوغو أجين هذا الله تماده مولد وسنة محمد صحابي صدق إنجرين هذا دقته النبي محمد وحو حرمي وإسكت دايا يجري أدو الحلال يسطه وتأويلات أراتته وحد أجاته أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ميل وقد عدي وقضب كلا بعد الدين تقوم مهم سنة وحدتك ويا فض ديستان ولذلك بدعوينك إيو وحرام هذا الحلال كديجتيد إيو توحيد كي تابانيسا ساد درتي أدبا وحالة لها قفك لي ماذا معصية أما الدم بالذنوب تكمد وفي صدر مسألة هو مهم وحكدرا قفك لي ماذا بدعو مسكين كان دنبي قال لي يمد ودنبي وكل عي وقرسيها هنا دنبي وحو إلهي كرجينا إنه ضاف عبسي بهايس إنه كطوبت كان مالين إنه كاستاغو لكن كان بدعاء كجرة وحوها استاه إنه سحسين هيبة وتلك مصيبة نواتس بدعو كجرة وحوها استاه إنه سحسين وبكل عبادي سنايا محبة رسولك إقادي ورلوك يسال دعايا سعاود أنه حد رهيناي وكبيه كرمادين أو هباس يبور دلي موجد وخساري موجودة قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ورنين كانوا في عين اسم ذابع وبإسلاس حسين وبإسلاس قمية لكن نربك صعدة ولذلك إن الراعة نبي محمد صلى الله عليه وسلم والله قد يصدوا الراعة وقيب طلبات شهادة نبي يقول قرآن إمام أحمد بن حنبل رحمه الله صدّن انتو دافي هذا ما حسست هذا الكيس ما صدّن يشنبو يري ما صدّن يكوبو يري علماء ذوي جوغان ويسيح كنا أمر جر بإله سبحانه وتعالى أمري قرآن كيسكو أمري نبي محمد إن لا أطيعه صلى الله عليه وسلم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول موجودة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة موجودة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله حساب ملح آياتك إله سبحانه وتعالى وكل شيء إنه محمد الله أطيعه للراع صلى الله عليه وسلم عبادة للقراع واعتقادك للقراع والسلوك للقراع وأخلاقياتك للقراع قفك كلية أمضنا هبا يرات واحد قف أنكو هاللينين أو قف وسن كدعينين على عقيدة أهل السنة والجماعة عمل كيسو صحيح هذا الكيسو صحيح والنبي محمد صلى الله عليه وسلم موجودة وإله سبحانه وتعالى أطهرين من البلغ طهري رسولك صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى
إن هو إلا وحي يوحى. موجودة ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. موجودة وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم إن لقود داي صدق ولا راعة ولا قدم بيوددي سال الإفتين صدق والتوحيد كقيب كمذا ياك مركا ماشي أس مركا جوكتيد ما كو كلا عد توحيد كنا وكو عد هذي يوددي سي وإلهي عبادي كلي أهد اتباعنا وكو عد هذا سؤالك وحي تبعته سينكو أوغانا يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وددي سي تاسا كو حكتا تاس مركا كو حكتو هوريرين نينكا هادو دينتو وحولا كتغي ومنصب كتغي ومقع كتغي ياي كو هرتا مقعاس يا منصب كاس يا حولاهاس ياي كو هران ياي كو هران dadkiisa ku haa ilmihiisa ku haran waa dhaxalkiisa dadka dhaxlaya Soomaa way dhaxleen waxaan oo galay waxa waaye xadiidka rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu yiri al ulamaa'u warathatul anbiyaa culimadu waxay dhaxleen nabiyadii dhaxleen wa innal anbiyaa lam yuwarrathu dirhaman wala dinaran inma warrathu al ilm لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه بحظ وافر كما قال صلى الله عليه وسلم علماء أنبياء علماء وحي دحلان بويري النبي صلى الله عليه وسلم نبياء دحلان نبياءنا لقمت دحلين دينار يا درهم منا لقمت دحلين نبي محمد بارتو كتجي صلى الله عليه وسلم أو مركها حوله وقعنت كوهي أو مسلمين وقعنت كوهي فاطمة حديث كاس مجارين ما أيسن مغلين أيضا قبل يسأت هذا ما أيسن مغلين النبي صلى الله عليه وسلم وحديث كوري ننكي أمدان وقول علمي قبضنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنين من ننكاس وأبو بكر وصديق markaasay timid ayadoo dhaxalkii rasuulka raadsanayso xoolihii raadsanayso markaasuu wuxuu ku yiri kuma siinay waxaan maqlay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam oo dhahayo nahnu ma'ashira al-anbiya la nurathu ma taraknahu sadaqa hadaan nahay anbiyada hoygoodii iyo kulankoodii hadaan nahay nalama dhaxlo waxaan ka tagno waa sadaqo النبي محن حوالي لقى ما دحل هايو صلى الله عليه وسلم لكن محل لقى دحلي علم يدين ما لقى دحل ضدك دحلي مركة وأيو وعلماء ده متابعة النبي محن مركة يا كبرنيسا علم يات كقادنيسا علماء ده عاملين تأت كقادنيسا لا اسكو ما خلاف سنة النبي محن إنه بدعة كدقي لا اسكو ما خلاف سنة النبي محن صلى الله عليه وسلم إنه أنبياء ده إن علماء ده إنه أماني لا اسكما خلاف سنة النبي محمد إنه الدين تعديي النبي محمد صلى الله عليه وسلم الدين أصلا عديين ميودنت ماي من نك عبادة بدل النبي محمد وكعلم بدل بإيمانه النبي محمد قاجي صلى الله عليه وسلم مايا وأنزلنا عليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم النبي محمد بالوري ضدك إن أدو عديسو دينتي لو سدجيي بام بكوغو سو دجيني كتابك اديك دم كتابك waxaan kugu soo dejinay wasaas يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس نبي محمد وحالي صلى الله عليه رسول كانوا ددك غارسي دينته hadaadan sameynina رساله الهي كو سو ديري مادن غارسينين عائشة رضي الله عنها وحيلادة هاي نبي محمد هدو آيات قرينايو وحو قرينها لها آيات دي لوغو قوريي زينب بنت جحش دقن عربيات بوها
ninka wiilka uu soo tabaniyo oo uu soo koorsado sida hadda adoptionka waddankan ka jiro kale adoption bay lahaayeen carabtu ninka wiilba soo kaxaysanaya magaciisa ku darsanaya wiilkaas waxaa la leeyahay in hebel asaa loogu magacaabaya wiilbu rasuulka saa usoo korsaday zayd ibnu xaritha oo la dhihi jiray intaysan aayaadka soo degin magaciis zayd ibnu muxamed baa la dhihi jiray ilaahay wuxuu doonay caadadaas in uu jabiyo dhaqankaas wiil inta la soo qaatay ilmo la soo qaatay la korsada ah oo magacana loola baxo magacii lagu darsada ah in la koriyo la hayo waa fadiilo waa wax wanaagsan laakiin in aabal wiil laga dhigto oo magacii lagu darsado magacii oo sidii wiil uu dhalay u dhaxlo oo gabar haday tahayna sidoo kale ilaahay ma ogoleen arrintaas inuu buriyo rabaa ilaahay yaa lagu burinaya ma taqaanaan yaa bilaabaya ma taqaanaan dadka aayanta loo soo dejiyay warsaa sameeyay maaha nabi maxamed baa laga bilaabay sallallahu alayhi wasallam nabi maxamed waa la cuslaatay waa dhaqan carbeed caado ay weligeed carab lahayd waa hadda anaga mushkiladana haysata ninkaasoo shaqo wadaad ah baa gabar dadka Soomaalida liidaan ah guurisa hadii la dhaho waxaad arkaysaa ninkii isgalay jiq ama laga soo doono oo ninkii laga sheegay nin baa gabadhiisa naadiyaa la yiri markaas wuxuu yiri gabar saas ahaan hayaa oo weyne gabadhaas rabaa inaan nin iga guursada marka nin dadkan walaalaheen ah oo hadda wax aan ku takoornana aysan jirin ah oo anagu aan u naqaan reer baaraha ama kanaha ama jareerta haddana baantuuga loo bixiyey ayaa yiri sheekh gabadha anigiisi kasii wariya masaaka ciyaarta ka daa mujada adiga kula mar rabo waay adiga kula mar rabe masaaka ciyaarta ka daa markay nabi maxamed baa lagu bilaabay sallallahu alayhi wasallam dhaqanka horta in la buriyo anigu hadda fikradaan u hayaa dhowr ah oo ay kamid tahay 100 wiil iyo 100 gabdhood oo 50 iyo 50 oo isdhaafsan oo ma taqaanay dadkan la yaso oo Soomaalidu liido iyo dadkan kala ah oo isu arkay inay nasab yihiin nasab waa ninkii nabi maxamed raacay in inta la isu guuriyo la isdhaafiyo la isu guuriyo xaflad weyn loo dhigo kaaba qabiilada iyo odayaasha iyo culimada iyo cid walba ka soo qayb gasho la yiraahdo caadadaas waa burinay